Robots humanoid waxay leeyihiin cilad naqshad halis ah, waxaanan u baahanahay inaan hagaajino. Daawo robotka Boston Dynamics Atlas oo qabanaya jadwal tababar ama bini'aadantikii ugu dambeeyay ee sawirka ku raran mashiinka dharka, wayna fududahay in la rumaysto in kacaanka robotku halkan joogo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Marka laga soo tago dibadda, waxay u muuqataa in caqabada kaliya ee hadhay ay tahay dhammaystirka sirdoonka macmalka ah, software si ay awood ugu siiso mashiinadan inay wax ka qabtaan jawiga nolosha dhabta ah. Laakiin ciyaartoyda ugu waaweyn warshadaha waxay og yihiin inay jirto dhibaato qoto dheer. Baaqii ugu dambeeyay ee iskaashiga cilmi baarista, qaybta roboticska ee Sony ayaa muujisay arrin udubdhexaad u ah dib u dhigista mashiinadeeda. Waxay xustay in robotska bani'aadminimada iyo xayawaanka kuyeelka ah ee maanta ay leeyihiin tiro xadidan oo kala goysyada ah, taasoo abuuraysa farqi u dhexeeya dhaqdhaqaaqooda iyo kuwa maadooyinka ay ku dayanayaan, taas oo si weyn u yaraynaysa. Sony waxay ku baaqaysaa hab dhismeed dabacsan cusub, nuxur ahaan, jirjireed oo caqli badan, si loo abuuro dhaqdhaqaaqa firfircoon ee hadda maqan. Arrinka ugu muhiimsan ayaa ah in robotska bini'aadmigu ay u muuqdaan in lagu naqshadeeyay agagaarka software kaas oo wax walba u xakamaynaya bartamaha. Habkan maskaxda koowaad waxay keenaysaa mashiino aan dabiici ahayn jir ahaan. Orodyahanku wuxuu ku dhaqaaqaa nimco iyo hufnaan sababtoo ah jirkoodu waa astaamaynta kala goysyada u hoggaansan, laf dhabarta dabacsan iyo seedaha u egguga. Robot bini'aadantinimo, marka la barbardhigo, waa isku xidh adag oo bir ah iyo matooro, oo ay ku xidhan yihiin kala goysyada heerarka xorriyadda xadidan. Si loola dagaalamo culayska jirkooda iyo firfircooni la'aanta, robotyadu waa inay sameeyaan malaayiin yaryar, sixid awoodeed ilbiriqsi kasta si ay uga fogaadaan inay kor u kacaan. Natiijo ahaan, xitaa bini'aadamka ugu horumarsan waxay shaqayn karaan oo keliya dhowr saacadood ka hor intaysan batarigu daalin. Si taas loo eego, Tesla's Optimus robot wuxuu ku cunaa ku dhowaad 5 watts koronto ilbiriqsikii socod fudud. Bini'aadamku wuxuu ku guulaystay socod degdeg ah oo aad u culus isagoo isticmaalaya kaliya 3 watts ilbiriqsikii. Robotku waxa uu gubayaa ku dhowaad 4% tamar dheeraad ah si uu hawl fudud u guto, taas oo ah hawlkarnimo la'aan. Soo laabashada sii yaraanaya. Marka, tani miyay ka dhigan tahay in warshadaha oo dhan ay ku socdaan waddo khaldan? Marka ay timaado habkooda asaasiga ah, haa. Jidka aan dabeeciga ahayn waxay u baahan yihiin maskax kombuyuutar sare iyo ciidan awood leh, kuwaas oo ka dhigaya robots kuwa culus oo u haraadiya tamar, sii qoto dheereeya dhibka ay higsanayaan inay xaliyaan. Horumarka ay wuxuu noqon karaa mid soo jiidasho leh, laakiin waxay horseedaa soo noqosho yaraan. Tesla's Optimus, tusaale ahaan, waa xariif ku filan inuu laalaabo funaanad. Hase yeeshee muujintu waxay si dhab ah u muujinaysaa daciifnimadeeda jireed. Bini'aadamku waxa uu isku laabi karaa funaanad isaga oo aan si dhab ah u eegin, isaga oo isticmaalaya dareenkooda taabashada si uu u dareemo marada oo uu u hago dhaqdhaqaaqooda. Optimus, oo leh gacmaheedu aad u adag yihiin, dareenka liita, waxay ku tiirsan tahay aragtideeda xooga badan iyo maskaxda ay si taxadar leh u qorshayso dhaqdhaqaaq kasta oo yar. Waxay u badan tahay in lagu jabiyo shaadhka jaban oo sariir khariban dul saaran, sababtoo ah jidhkiisu malaha garaadka jireed, si uu ula qabsado xaaladda aan la saadaalin karin ee adduunka dhabta ah. Boston Dynamics cusub, oo dhan korontada Atlas waa ka sii cajiib ah, oo leh dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo u muuqda ku dhowaad shisheeye. Laakiin waxa fiidiyowyada roboticska fayrasku aanay muujin waa waxa aanay samayn karin. Si kalsooni leh uguma socon karto meel dhagax ah oo qoyan, tusaale ahaan, sababtoo ah cagihiisa ma dareemi karaan dusha sare si ay ula qabsadaan. Oo ma ay dhex mari karin jiqyo cufan oo laamo ah, maxaa yeelay jidhkeedu ma dhali karo, dabadeedna wuu soo baxayaa. Tani waa sababta, inkasta oo sannado badan oo horumar ah, robotsyadani ay inta badan yihiin goobo cilmi baaris, ma aha badeecooyin ganacsi. Waa maxay sababta aanay hogaamiyayaasha warshaduhu mar horeba u dabagelin falsafadan kala duwan? Mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ayaa ah in shirkadaha ugu sarreeya ee roboticska maanta ay yihiin asaas ahaan softwareka iyo shirkadaha kuwaas oo khibradoodu ay ku jirto xalinta dhibaatooyinka xisaabinta. Silsiladooda sahayda caalamiga ah waxaa loo habeeyey in lagu taageero tan matoorada saxda ah, dareemayaasha iyo soo saarayaasha. Dhisida jidh ahaan maskaxda robotku waxay u baahan tahay habnoole wax soo saar ka duwan oo ku xididaysan agabka horumarsan iyo biomechanics, kaas oo aan weli u bislaan in lagu shaqeeyo miisaan. Marka qalabka robotku uu u muuqdo mid aad u cajiib ah, waa wax la tijaabiyo in la rumaysto in cusboonaysiinta softwareka ee soo socota ay xallin doonto arrimaha hadhay, halkii la qaban lahaa hawsha qaaliga ah ee adag ee dib u qaabaynta jidhka iyo silsilada sahayda ee loo baahan yahay si loo dhiso. Ismaamulka. Caqabadan ayaa ah diiradda sirdoonka farsamada kaas oo ay baarayaan kooxo badan oo aqoon-yahano ah oo adduunka ah oo ay ku jiraan tayda London South Bank University.
Waxa ay ka timi aragtida ah in dabiicadu ay dhammaystirtay jidhka caqliga leh malaayiin sano ka hor. Kuwaas waxaa lagu saleeyay mabda loo yaqaan xisaabinta morphological, taasoo la micno ah in jidhku uu qaban karo mid adag xisaabinta si toos ah. Miisaanka koorta geedku wuxuu u furmaa xaalado qallalan si uu u sii daayo abuurka, kadibna xidho marka uu qoyan yahay si uu u ilaaliyo. Tani waa jawaab celin farsamaysan oo keliya ee qoyaanka oo aan maskax iyo matoor lug ku lahayn. Seedooyinka lugta bakaylaha ordaya waxay u dhaqmaan sida ilo caqli leh. Waxay si aan qarsoodi ahayn u nugaan showga marka ay cagtu dhulka ku dhacdo, kaliya si ay u sii daayaan tamarta si ay u noqdaan kuwo deggan oo waxtar leh, iyada oo aan u baahnayn dadaal badan oo ka yimaada muruqyada. Ka fikir gacanta bini'aadamka. Hilibkeeda jilicsan waxa uu leeyahay caqli dadban si uu si toos ah ula qabsado shay kasta oo uu hayo. Farahayagu waxay u dhaqmaan sida saliidaha casriga ah, hagaajinta qoyaanka si loo gaaro heerka ugu fiican ee isku dhaca dusha kasta. Haddii labadan astaamood lagu daro gacanta Optimus, waxay awood u yeelan doontaa inay qabato walxaha leh qayb ka mid ah xoogga iyo tamarta hadda loo baahan yahay. Maqaarka laftiisa ayaa noqon lahaa kombiyuutarka. Waxay dhammaan ku saabsan tahay naqshadaynta qaab-dhismeedka mashiinka si loo gaaro la qabsiga tooska ah ee tooska ah, awoodda looga jawaabayo deegaanka iyada oo aan loo baahnayn dareemayaal firfircoon ama soo saarayaal ama tamar dheeraad ah. Xalka dabinka bini'aadmigu maaha in laga tago qaababka maanta hamiga leh, laakiin in lagu dhiso falsafadan kala duwan. Marka jirka robotku uu jir ahaan caqli leeyahay, maskaxdiisa waxa ay diiradda saari kartaa waxa ay sida ugu fiican u qabato, istaraatiijiyad heer sare ah, barashada iyo la macaamilka adduunka si macno badan leh. Cilmi baarayaashu waxay mar horeba caddaynayaan qiimaha habkan. Tusaale ahaan, robotska loo qaabeeyey lugaha u eg guga oo u ekaysiiya seedaha tamarta kaydinta haramcadka waxay ku socon karaan hawlkarnimo cajiib ah. Kooxdayda cilmi baadhista ayaa horumarinaysa hingiska isku dhafan iyo waxyaabo kale. Kuwani waxay isku daraan saxnaanta saxda ah iyo xoogga wadajirka adag iyo la qabsiga, sifooyinka showga ee mid u hoggaansan. Robotka bini'aadamka ah, tani waxay la macno noqon kartaa abuurista garab ama jilib u dhaqaaqa sida kan bini'aadamka oo kale, oo furaya heerar badan oo xorriyad ah si loo gaaro dhaqdhaqaaq adag oo nolosha u eg. Mustaqbalka robotikku kuma jiro dagaalka u dhexeeya qalabka iyo softwareka, laakiin waxa uu ku jiraa qaabkooda. Markaan isku duubno waxaan abuuri karnaa jiil cusub oo mashiino ah oo ugu dambayntii si kalsooni leh uga soo bixi kara shaybaarka una geli kara adduunkeena.